carruurtii oo kale aad ogtihiin ayagoo weliba yar yar oo aad u yar oo da'yara ayay qoranayaan oo rekruut garaynayaan oo maleeshiyaadkooda ku darayaan si ay ummadda ugu dhibaateeyaan maadaama weli aanay kobcin maskaxdoodu oo aanay kala gara karin maxaa xun maxaa wanaagsan sida ayay ugu qaldayaan annaga marka maxaa nagala rabaa waxa nagala rabaa kow horta ummadeena inaan ka qabanno ayaga oo dhinac walba kula dagaalan wadiiqo kasta oo aan dadkeena iyo dalkeena uga qaban karno uga xuray karno inaan uga xurayno labo carruurta ay qaldeen oo masaakiinta oo wax magaratada oo weli maankooda iyo maskaxdoodu aanay kobcin sidii dhibaatada ay geliyaan looga soo badbaadi lahaa ayaa nagala rabaa marxalada kala duwan oo ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed soo maray maantana soo meel jooga ayaad ku soo biirteen asigoo waliba meel fiican joogaad ku soo biirteen dabcan ma aanu kaanan gaarin yoolasha aan lahayn iyo meelihi aan u soconay ma aanu kaanan gaarin laakiin haddana meel fiican aan nimiday oo soo gaarno maanta halkaas aad marka maanta kala qabsanaysaan dabcan waajibaadka qaranka iyo waajibaadka ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed waxa laga yaabaa qayb idin kamida kaliya inay ka fikirayaan in waajibaadka ciidanku yahay kaliya in qori la qaato waardiye la qabto ama la ilaaliyo ama cadowga lala dagaalamo kaliya maya way ka ballaaranta aaday uga ballaaranta halkan hadda waxa maanta nala jooga hoggaanka isku xirka ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed iyo shacbiga Soomaaliyeed sababta loo aasaasay maxay tahay sababta loo aasaasay waa dabcan sidii ciidanka iyo bulshadu ay wada shaqay lahaayeen la isugu xirnaa lahaa iyo sidoo kale sidii ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ay uga warhay lahaayeen daruufaha gaarka ah ee bulshadu ay qabaan meel kasta ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed tagayaan iyo meelaha ay joogaan intaba waxa la socotaan cadow argagixiso ah oo bilaan naxariisaha wadankeena ummadeena Ilaahay ku itixaamay oo dagaal kula jirna dadkaas marka sidooda waxay ku howlan yihiin dhibaateynta dadka Soomaaliyeed in ay waxyeeleeyaan inay dhibaateeyaan inay mushkilo u keenaan ayay u joogaan u jiraan oo ay u dagaalamayaan marnaba wax bulshada saacida ayagu kama shaqeeyaan sidaas daraadeed duruufahaas ku dhacaya iyo dhibaatooyinka ku dhacaya iyo mushkilooyinka ay la kulmayaan sidii looga warhay lahaa waxa laala iyo wixii laga qaban karana looga qaban lahaa ayay mar walba ciidanku u taagan yihiin hoggaankaanuna u asaasan yahay maalintii la asaasay la maalinta maanta ayana runtii wax weyn ayuu ka bedelay dhinaca marka la yiraahdo wada shaqaynta ciidanka iyo bulshada marka la dhaho ama ifan marka la dhaho baahiyaha bulshada ay qabto in allaala iyo inta karaankeena ah in aan ka jawaabno waxyaabo badan marka waxa soo hoosgalaya dabcan dawladana adduunkana waxa ka jira qaanuun iyo xeerar caalamiya oo qof walba ay tahay inay ixtiraamto xeerarka caalamiga ah cid walba way qabanayaan cid walbana waxa waajib ku ah inay ilaaliso way kala duwan yihiin marka xaquuqaadka qofka muwaadinka ah iyo haddaanu muwaadin ahayn oo wadankaaga joogyaba uu si ku joogo sharciya iyo nidaam uu ku joogo wadankaaga xaquuqaad uu leeyahay even xitaa midka aad la dagaalamayso oo cadowga ah oo aad ogtahay inuu dadkaaga dhibaateeyay oo aad ogtahay inuu ummadaadi ku soo duulo qarankaaga ku soo duulay ayaa mararka qaar koor marka uu gacantaada soo galo ayaa xaquuqaad kugu yeelanaya oo inaad dhowrto ay tahay maadaama aad adigu tahay institution sharciya maadaama adigu aad tahay ciidankii ay aheeday midka qaldan iyo midka saxan intaba aad u tahay sharci ilaaliyihi sidoo kale bulshada laftirkeera ka soo qaad waxaan ognahay hadda nimanka argagixisada ah oo la dagaalano waxna ma dhowrayaan xeer ma dhowraan qaanuun ma dhowrayaan even diinteennii suubaneed oo aad ogtihiin wanaageeda iyo naxariisteeda ayay sidaad aragteen uga been sheegayaan oo dadkii iyo dalkii Soomaaliyeed ku dhibaateynayaan marka waxaad ogtihiin sidaas oo kale si ay u helaan ummadan ummad ay ku qaribaan in cid ay kala saaraan aanay jirin carruurtii oo kale aad ogtihiin ayagoo waliba yar yar oo aad u yar oo da'yara ayay qoranayaan oo rekruut garaynayaan oo maleeshiyaadkooda ku darayaan si ay ummadda ugu dhibaateeyaan maadaama weli aanay kobcin maskaxdoodu oo aanay kala gara karin maxaa xun maxaa wanaagsan sida ayay ugu qaldayaan annaga marka maxaa nagala rabaa waxa nagala rabaa kow horta ummadeena inaan ka qabanno ayaga oo dhinac walba kula dagaalan wadiiqo kasta
oo aan dadkeena iyo dalkeena uga qaban karno uga xuray karno inaan uga xurayno labo caruurta ay qaldeen oo masaakiinta oo wax magaratada oo wali maankooda iyo maskaxdoodu aanay kobcin sidii dhibaatada ay geliyeen looga soo badbaadi lahaa ayaa nagala rabaa isla sidaas oo kale ciidan anaga caruurtu xuquuq ay leeyihiin حقوق ده إليه مركي إلالين أيوب بحنتا أنا قد نورمال هذا وحرت أنا قاعد كوضع هلا إنما ما عرورا قرنا ما سما قرن وحنا قبنا أيام بكر أنا بقول هنا نبهن أقل له مال له جوكتو قرن كان يواجبات كله قبل هاي قبكرت أو تاهرت عيدا كحوق دلك الصوماليات كما دحجرته لكن ما لا يرى ربعنا إذا كتصيب وحلا جايبا مركا غاركور عيدنكم ما لا هاي دقيهين وكله هذا دوكسي كان وكله حافظة كحيرا جهول بحافظة كحيجا عنقا وحلا جايبا سدد بن إنه دوكسي وجوك أما حرده وجوك أرنتا أيدا ومركا وحي تابنا يسا حقوق دي أي لهذا صح ما كاسو كلا مركان أرجنا وحي هدنا لو كحيو اسكول كانوا يقولوا ولا جاي كره لجيو والدين تيس لو جيو لوانيو حتى كلا ده هل كان محوك قبنا وحلا يابا مت إذا كمده إنه لا وروح بل يسوق قبابا حق ما أقول هدينا الضغط أو وحود درست إنا أديكست مية أقول ما ضل لهين وحيابها صار المركز إلا إلى يباهيه أسك عيدنا هان إن كتعذرنا يباهيه أديادنا نويلالين waxa ugu darano waa nimanka argagixisada oo runtii caruurtii Soomaaliyeed dabka ku shubaya oo halaagay oo dhibaatada u geysanaya wadiiqo kasta ee looga badbaadi karo marka inaan uga badbaadinaan ku qasbana waxa inta noo dheer waajibaadkeena guud oo kale iyo ilaalinta sharafka ciidanka ilaalinta amaanada ilaalinta sharafka iyo karaamada dadka Soomaaliyeed mas'uuliyad gaar ah naga saaran maanta waxa tiin dhalinyaro Soomaaliyeed oo dhamaan gobolada dalka meel walba oo dalka kamid laga keenay intiina waxaad isugu timideen ma ahan dan shakhsi ma ahan dan adinku ku adeeganaysaan ma ahan hawl adinka idin gaara oo adinku aad leedihiin oo qabanaysaan inay jirto waxaad qabanaysaan waa danti caamka ahayd waxaad u adeegaysaan guud ahaan waa ummadii Soomaaliyeed waxaad u adeegaysaan waa qarankii Soomaaliyeed si jiilalka naga dambeeya iyo jiilalka maanta mustaqbalkooda uu hagaago hadii Ilaahay ogolaado marka waxay u baahan tahay waqti waxay u baahan tahay juhdi in lagu bixiyo waxay u baahan tahay dadaal in lagu bixiyo waxay u baahan tahay naf iyo dhiig in lagu bixiyo ummad kasta ee xura ummad kasta ee nabad ku nool ummad kasta ee horumar iyo barwaaqo gaarta waxa ka horeeyay dhiig daata ka horeeyay dhidid daata ka horeeyay xurriyad iska socota oo gaariga laga soo dega ma jirto no way meel ay ka jirto ma jirto xurriyad kasta jirta horumar kasta jira dadaal uu ka dambeeyay dhiig dad bixiyeen uu ka dambeeyay dhimasho uu ka dambeeyay rafaad badan oo dad mareen uu ka dambeeyay ummad kale iyo u timida ay u halgantay xurriyad iyo nabad iyo horumar iyo barwaaqo ay siisana ma jirto ummad walba ayada ka shaqeysa horumarkeeda ummad walba meel Ilaahay ku beeray ayada ayaa horumarkeeda ka shaqeysay 360 75 hours 10 6